السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله سلام الله شكر الله ثم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan maanta waxaan ka bilaabeynaa casharkeenagii koowaad ee kitaabka siiratu nebi sala allahu calayhi wasalam, ka hadlaya siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam. soo qeyb su-aalo iyo jawaabaad qaabkaas soo ku socda. marka waan booseyneynaa su-aasheena koowaad waxa weye masmu nabiyina sala allahu calayhi wasalam, nabigeena magaciisa muxuu ahaa? huwa nabiga calayhi salaatu wasalaam sayidina sayidkeena weeye maxamed bni cabdullaahi bnu cabdilmudalib bnu haashim. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhihi jiray magaciisa asaga nabi maxamed sala allahu calayhi, aabihiisna waxaa la dhihi jiray cabdullaahi, awowgiis aabihiisa dhalnay waxaa la dhihi jiray cabdilmudalib, awowgiis aabihiisna waxaa la dhihi jiray haashim. martaabaa welida la dhalay nebiyunaa sala allahu calayhi wasalam, nabigeena goormaa la dhalay? welida nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhalay fi yowm ithnain, maalin isniina, fi shahri rabiici alawal, bisha rabiici alawal, caam alfiil, sanadkii maroodiga. fi ayi makaanin welida nabiyina sala allahu calay wasalam, makaankeen lagu dhalay? welida waxaa lagu dhalay sala allahu calayhi wasalam fii makati almukarama, magaalada maka ee barakaysan. wanasha'a bihaa ayuu kusoo barbaaray, cala sidqi buu kusoo barbaaray, run sheegid, wal amaanati ammaanu kusoo barbaaray, iyo makaarimi akhlaaqi, akhlaaqda mideeda wanaagsan oo kusoo barbaaray. kaana maadaa maxay kaana ahaayeen yuqallibahu mid ay u naynasaan, wiisamiihi ay ku magacaabaan ahlu makata wey. maxay nabiga calayhi salaatu wasalaam reer mako ugu naynaasi jiray kuna magacaabi jiray? kaanuu ahlu maka waxay ahaayeen yusamuunahu kuwa ku magacaaba assaadiq kii rulowga ahaa, al aamiini la aaminiyo ama aaminka ahaa. mataa goortee uu nasala kusoo degay calaa nebiga nebi sala allahu calayhi wasalam alwaxyi, waxyiguuna kusoo degay, waxyigaasoo min allahi tacaala ilahay xaggiisa ka ahaaday wey. anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey calayhi nebiga dushiisa alwaxyi, waxyigii, bacda anaka mala intuu nebigu dhamaystirtay sala allahu alay slam 40 sanatan, intuu dhamaystiray wey. calaa yadi jibriila, jibriil markaas waxa weye gacantiisa markaas waxyiga lagu soo dhiibay calayhi salaam. jibriil nabiyada naxariis iyo korkiisa ha ahaatee. markaas macnaha waxaa noogu dhammaaday mustawihiina koowaad wey. insha allahu tacaala iyo cashirka labaad.